السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa laamaha media iyo anigoo ah Fawz waxa maanta ila joogo oo maanta marti ah oo soo cazumnay walaalkeen Maxamed Biibshe ku soo dhaw marka hore aad iyo aad walaalkayga waan dhawahay waxaan aad u salaamayaa laamaha media YouTube oo aad leedahay walaalkayga marna ah fanaan marna hadee wariye channelkiisa ka noqon qasab wahay waan ku faraxsanahay inaan ku dhawahay channelkaaga waxaan rajeynayaa halkan inaan ku kala wadaagno sheekooyin xiiso badan iyo waxyaabo badan oo bulshada isla ka qarsoon yihiin in dabcan halkan isku wareysan doon sidaan jeclahay si fiican marka subscribe like share comment iska afar watas ismu weydiiyaa naki Soomaalida in la weydiin ma waxa ma siiyaan ma wallahi way fiican dhaga fudin kuwan ma xogaa dadkaaga la hadlaya dadkayga asxaabtii waa saarayeen kuwan asaga isku keen hubo wuxuu yiri hadal ma baan asxaabta Biibshe waxa waaye farafudeed hal idin gaalo aad iyo aad waata ku soco halkani waa laamaha media sida hore idin ku sheegnay waxaana maanta marti inoogu ah fanaanka da'da yar aadka u cod macaan hadana geeyiga Soomaalida iyo dhamaanba meel walba oo adduunka Soomaalida ka joogtaba saas loogu calaamad ruuxay oh my god kaasi waa kuma wada aragtaan magac uma baahna waa alfanaan Maxamed Biibshe horta waa kuma aan idin baro maanta waxa laga yaabaa dad badan oo dad macnaha Maxamed Biibshe wax macnaha u dhaafsan garanayna bal maanta magaciisa saddexan afkiisa aan ka maqalno aad u maasantahay walaalkayga Fawzi waana dhawahay channelkaaga quruxda badan magacaygu saddexan waa Maxamed Cabdullaahi Salaat nanaastuna waa Biibshe dad badan dhowr jeer weydiino jiraan Biibshe ma adiga iskale mise familka waa ana magacaan sameystay waa magac bulaal doono Williams lacag sameeyay doono magac sal dhigi doono Bill Gates ilaa baa wata mogt Williams lacag ma haysto Biibshe Williams aysan arkaa insha Allah ma sha Allah waxa weey Maxamed Biibshe wuu idin sheegay magaciisa saxda ah balse wali waxa dhiman su'aal ah maxaa lagu bixiyay Biibshe waxa uu baxday dhowr jeer horena waan sheegay kubadda cagta inta aan dhiilay buu magacaas ii baxay sababo nin iska orod badan oo kulli saas ah wad biibi jirtay magaca asalkiisana biiba yaa rag badan meesha comment ka garanayaan laakiin magaca kadib waa la shootay waa la qurxiyay saana ka soo baxday biizaan rag baa isugu tagay Biibshe ka soo saareen ma sha Allah intaasi waxay isbarashada Maxamed Biibshe waa fanaan aad u daayar sida aad taqaanaanba hadana ka magac weyn dad badan oo fanaaniin oo waaweyn waxarna Maxamed Biibshe inaad noo sheegto waqtigii aad fanka soo gashay iyo meeshaad ka soo gashay iyo heestii kugu horeysay ayadoo macnaha caadi ah in aad waxa jirto heesas aad liigu baran waxaan qaaday 2018 bishii koowaad waan heestii ugu horeysan ku soo galay fanka waan muuqaal u sameeyay Abdi Askari Tuubal soo dhigay hees la yiraahdo adiga hanti oo miraha laxankeeda aniga aan lahaa ayaan ooda kaga soo qaaday oo ilaan abwan baad wadno dhumatay niha xogaa waa gastaa maran turta miraha laxankaana iska lahaa heestaas jirtay hananiyo wanaag hebad iyo sharaf hawla aynigo waa waxaad hormoodo ku taqaayay halka aan ku xiray heestaas ay ugu horeysan ku soo galo ma sha Allah Muqdisho ana joogo xiligan ka soo galayo ayaa xamar askeen codad ma naqaan anaga codad ma naqaan saasa heesaa jirto magtaa dhalinta maanta joogso oo dhan baan codad aqoon waa ma sha Allah Soomaali meel walba dhalinyarada waa walaalo wax codad loo jirto ma sha Allah ilaahay inta ku qufulanaha ka saaran leena Biibshe waxa rabaa inaan ku weydiiyo fanka macnaha qof walba hami uu ka leeyahay markaad soo galeysay taageed waxa jiray macnaha meel aad higsanaysay aad iyo aad ma la dhihi karaa Biibshe maanta meeshii uu gaaray mise ma gaarin ma gaarin umana dhawi xitaa saasana aaminsanahay because of halbeega aniga rab inaan qaato meesha arab inaan gaaro ah xitaa meel sawir ka baxsan weeyaan qofku markuu meel cabirka uu geeyo waa laga yaabaa inuu gaari karo laakiin waa furay guud ahaan waxaan ka dhigay yani option ama sheeko furanba gaaristeeda aan la gaarinba subax alla keen waan rabaa habeen alla keenan rabaa wali waa yani target toosan ma lihi laakiin muhiimad waxaan target gareynaa ah inaan dhaqankii iyo suugaantii aan ka dhamaan oo aan ugu heeso dadkayga meel fiican ka istaago sidaas aan jeclaa ma sha Allah maadaama oo Maxamed Biibshe fanaan tahay waxa aan ka wareysanay inuu isla fanki yahay ilaan shaqo kale kugu ogi oo wariyaniman ku oga wariyanimadina waa iska deysay sida la sheegay fanki baan wali ku jireynaa oo joognaa markaad fanka aad soo galeysay wax caqabadaha aad kala kulantay ma jiraan ama dhibaatooyin wallahi ma jiraan because of xilidan soo galay xilli anigu media aan ka shaqeynayay ahayd hadii aan music u baahanahay lacag kolleega xigta lacagtina baxsanahay laxamadan ana saaranay erana maanta simple weeyaan qof inuu erey ku siiyo abwaan wuu jiraa oo aad ii soo caawiyo abwaankii saaxiibkayga marna walaalkayga abwaan xeelo halka ka salaamayo heeso badan aniga alla yahana asagu marka oo leeyahay maanta mirahooda oo kuwa lagu jecel yahay ah sida wax kale heesta la yiraahdo wanku faawakaca heestii dhoof ahayd iyo hees kale oo ayadana marka dhawaanaha soo bixi doonto ما شاء الله
biibshe weli waa su'aalaha ma dhamaanayaan weli fanka ku dhex jirnaa weli fankan ku jirnaa laakiin fanka haddii aan ka baxno banaankan aadinay oo aan banaanka saas aan ma sii aadin adigu ma kula joognaa weliba macnaha fanka wax ku dheer oo aad maanta aad hayso ma jira ama aad isleedahay haddaad fanka ka fariisto waxaasaad qabani ها ودور أفضل يفرن أجره شقة واحد تعادي وحرفت أنا مرة كار أن سميه سيدا صحافة ده إن جورناليستي مرة كار أنا هاي هدي نلاش مستقبل يراد مش قدام فينس وحوا كل ميرسر متحوين يحبل رجينا because of نين مش وصل رسول رجيم هدي متحوين رجيس على رسول سارنا قدام من أي شغلة كذا لكن وياه هدم بين نلاش عادي فن كان اللي يرني مدويان وحيجوا أن صحافة ده ويحكي قدام بين وقتنا كان كله واتاي biibshe maanta waraysiga waan kugu badiyay umaleynaya ما it's okay waxaan qabaa su'aalooyin kala diiwayta inay ka jaabi karo isleeyahay ma istiri hay weli halkaan nagala socotaan waa laamaha media idinkoo mahadsan subscribe like share comment maanta yaa idin keenay in badan baad waxaad dhahdeen sheekadaysan fanaaniintii keena yaan idin keenay fanaankii loogu jeclaa magaalada tan wadaadka miskiinka ah war wadaadna kaa dheere alfanaan maxamed biibshe hay maxamed biibshe hay ma toos baad usoo guurtay oo Nairobi baa tahay ood sii joogaysaa mise inaad laabato ood ilan socotaad nagu soo gaadhay waa ka horta anigu asal ku qorshaysan walaa horta muqdisho marba laga maarmaan waa hooygii ama guud ahaanba Soomaali meesha yani madaxda u ahayd nolosheedu aan jecel meesha aan ku noolaan lahaa in ayada ii ahaato laakiin Nairobi sabab mid waxay un arrimo kooban oo aan rabo fanka iyo waxyaabo kale fursado waxbarasho xataa kamid ah inaan ka gaaro in cabar waan joogi doonaa laakiin waxaan si guud aan wali niyada ku hayaa inaan u laaban doono Soomaaliya Muqdisho ما شاء الله محمد بيبشي سؤالها واسكسو كوبينا ووقتي أنا وير ما ترى فنان أد تاجرته أما أد إسلامه معناها ننكهس أو كان هذا نقول له هيك فانك واتك غير كان لازم تجاري له والله ويجرن فنانين بدنا عن تاجره واللي فنانين تهرأ يكون دم بيسوق يجري كوا دحبا هل دمرة يهلنا نقص قبا رجع دمر هل هذا أتكانه وحلقة بقى فنان بينا ملك تاجرت هذا مثلا فنان كلي حسن سمتر يلا فوله لا بدو تاجره حد كنت تاجرته waxaan ku taageeraa dabcan xasan aan samatar waa nin heysiiso ee badiyiin aw halka madila dar dhamaanteen wada qaadino waa nin markaa soo kacinay aan la bilaabano sheekada muusiga ah ko muusigiisna ma daalan maanta diila dar hadii shal la daaro isku sim wali sidii baa loo xiiseeyaa la foole oo isaguna ah nin cod dabacsan oo aad u cod macaan isaguna heysiis aad aan u jeclaa waaga yaraana xitaa qalad aan qaaday waan xifdi jiray heysiisa qaarkood ما حسست أحس ساعة كم أتقاعد ترتواجس أدونك دنتان كايغان تراي وإيغا واو ما شاء الله بس نقدر حدا دقائق وأوي يا وأوي مركا إيش كم ده إن هل يلا أصحابك كحرنا لامها ميديا وسوقوا بينا وركوا وسوقوا بينا مو وسوق بقبيننا لامها ميديا إن وحنا لي دمانبا أصحابك كحرن يهول وذينا iyo milkiilaha aad baan idin salaamaya waan idinkaga mahad celinayaa inaan idila soo muuqdo oo waqti la qaato farxad bayna ii tahay inaan fursadan oo kala wadaagno oo waliba aan ku sheekaysano iyadoona marka qaar ay tahay dadku in fagaaro la isugu yimaado la isxog wareysto xal badan ay u tahay in nolosha qof kale wax laga ogaado si guud waxaan leeyahay aan soo soconno aan iska warhayno meel walaal meesha ku aragtid muhiimadana like iyo subscribe share kala galaba tago waa la saartaa hadda fahamtay inuu video ku anfacay kuna anfici doonana subscribe ka soo horeeyo like dhigaa ku dhufo hadalna soo qor wanaagana aan ka fiirino insha Allah sidaan leeyahay ma sha Allah warka waa leedin koobay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen marna fanaanka da'da yar aad ku cod macaan laga daba dhacay sanadihii dambe eed gurigaad gashaba ama wadadaad maraysaba gariireeda ku ay dadkii ka wada gariireeyay ya maala uhuru ma loo arkayo gariireeyo dhaayo asxaabta aad baad u mahadsantihiin halkani waa laamaha media walaalkeen baa marti noogu ahaa barnaamijka halkaas aan ku soo xiranahay haduu la idmo intaan kala lamid ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo